ku soo dhawaada daawadayaal barnaamij aan kaga hadlayno shaaha faa'iidada uu leeyahay dadka. Shaaha bigeeska ah run ahaantii midabkiisu ma aha madow sida ay dad badani aaminsan yihiin. Dalka Shiinaha waxaa looga yaqaan shaaha cas. In bigeeska la cabo maalin kasta waxaa ku jira faa'iidooyin fara badan. Dadka qaar xitaa waxa ay geliyaan beddelka qaxwada markii la eego sida looga helo firfircoonida. Hase yeeshee kama marna xoogaa faa'iido daro ah. Haddii uu qofka iska badiyo ama koobab xad dhaaf ah uu ka cabo maalin kasta. Halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa faa'iidooyinka caafimaad oo uu leeyahay bigeeska, kuwaasoo lagu ogaaday daraasado la sameeyay. Qodobka koowaad, wuxuu yareyn karaa dhiig karka. Waxaa qiyaas lagu sheegay in 26% ka mid ah dadka caalamka ku nool uu cadaadiska dhiigoodu sareeyo, taasoo horseedi karta inuu ku dhaco xanuunka dhiig karka oo khatar gelinaya noloshooda. Daraasado la sameeyay ayaa muujinaya in cabista shaaha bigeeska ah ay si joogto ah u dhimi karto cadaadiska xad dhaafka ah ee dhiigga, inkastoo saameyntiisu ay aad u yaraan karto. 2, bigeeska wuxuu wax ka qaban karaa kolestaroolka. Halkii qof ee ka mid ah 3 ruux oo kasta oo aan qaangaar ah waxa uu qabaa kolestarool, laakiin ragga ayaa halista ugu badan ugu jira marka la barbardhigo dumarka. Cilmi baarayaasha ayaa ogaaday in haddii aad caddaysato shaaha bigeeska ah uu kaa caawin karo in uu dhimo heerka kolestaroolka, welibana uu saameyn weyn leeyahay. 3, wuxuu la dagaalami karaa suuska ilkaha. Shaaha si guud wuxuu leeyahay firfircooni caafimaad oo badan. Shaaha bigeeska ahna si gaar ah waxaa la ogaaday inuu qofka ka difaaco bakteeriyada sababta suuska ilkaha gala. Qodobka 4, bigeesku wuxuu ka hortagi karaa sokorowga. Ku dhawaad 422 milyan oo ka mid ah dadka ku nool caalamka ayaa la xanuunsan cudurka loo yaqaan sokorowga ama macaanka. Noociisa type 2 ayay qabaan qiyaastii 90% ilaa 95% ka mid ah dadkaas. Hase yeeshee waxaa la ogaaday in cabista shaaha bigeeska ah ay yareyn karto sokorta geli karta dhiigga, ayna si joogto ah hoos ugu dhigi karto fursadaha uu qofka ku dhici karo cudurka sokorowga. Haddaba waxaa jira khasaare kooban oo uu leeyahay shaaha bigeeska ah, maadaama la yidhi faa'iido kasta nusqaanteeda ayay leedahay. Barnaamijkeena maanta aan kaga hadlaynay faa'iidada uu leeyahay shaaha. Sheekooyin badan ayaan idiin soo wadnaa iyo barnaamijyo kala duwan. Waad ku mahadsantihiin daawadayaal, nagu xirnaad waad ku mahadsantihiin daawadayaal sida aad nala socotaan. Waxaan idinka codsanaynaa inaad u sheergareysaan asxaabta jecel barnaamijyada iyo sheekooyinkeena si ay uga faa'iideystaan. Mahadsanidin, waan idin jecelnahay. Soo dhawaada.